السلام عليكم كسر دوادا فيسبوك جروب ميديا جروب maanta waxaa la joogaa Zahro waa hooyad Soomaaliyeed oo gabadheeda laga qaatay marka waxaan rabnaa Zahro inaan la hadalno maanta sababta gabadha loo qaatay maxay tahay iyo maxaa laga caawin karaa marka Zahro had ma nooga sheekay kartaa sababta keentay in gabadhaada la qaato salaam sidii ku bilaabato waxa dhanba salaam alaykum horta dhamaan waa idin salaamaya salaam kadib ilaa hadda sababta aniga baan la yaabanahay waayo because subaxii inaan aroortii iskoolka caruurta geeyay la isoo wacay la yiri gabadhaada ayaan wareysanaynaa gabadhi marka la isoo wacay la yiri gabadhaada ayaan wareysanaynaa nagamana daba hadli kartid nagamana daba iimaani kartid waayahay aan ku ira يعني maalina lagu imaaday ma la iimaan waa la soo wacay waa lagu soo wacay iskoolka gabadha marka laga kaxaystaa la soo wacay hay waxa la yiri gabadhaada gabadha 12 sano jirto Aisha hooyadeed ma tahay ha waxaan rabnaa gabadhaada waxay sheegatay dhibaato in la dilo waxaan rabnaa inaan wadno oo soo wareysano ma naga daba hadli kartid ma naga daba iimaan kartid hay waxaan ku ira ma idin fahmeen waxa ka hadlaysiin gabadha hadda iskool geey maxaa dhibaatada jirto hay waxa la yiri waan kugu soo celinaynaa sida inaan macnaha aanan afgaranaynin u fahmeen turjubaana soo wacay wuxuu igu yiri Zahra miyaha Aasho hooyadeed ma tahay ha marka gabadhi waa la waday odaa laga soo duubaya dhibaatay sheegatay marka sidaas ula soco waayahay aan ku ira galabkii la ii imaaday gabadhiyo la wadin waxa la igu yiri waxaan rabnaa inaan gabadhaadi waa la soo wareystay wixii ka soo baxayna ma ogin asay igu leeyihiin marka laakiin gabadhi way cabsanaysaa guriga kuma soo celin karno way walwalsan tahay way baqaysaa waxay tiri guriga kuma laaban karo hadda waa sida ay leeyihiin أنا مركب حائري مالها قلدا ماشي كجرة قبل يساق أيضا فرحسن أنا حبسي جاري كدجي أنا أنجي سي وعبسنا سبب أوجبه قبل أنا ما الله كل مكراسي دو قلد جرانو وقاعدة ما يلا ما كل مكرت سبب تجرت محيتها ما الله كل مكرت ويبقى صعبة هنكويري قلد كمال وكجرة ما هو يعني مالها مش فستورس قلد إنه وحير مسود واكرت بعش مسودها قلت إنه أيضا إيا أدينكيدن دحمرا dhici karto marka waxa la yiri maya qaladna ma dhaxmarin gabadhaada afdeeniska si fiican ay u taqaana dhibaatay sheegatay marka waxaan rabnaa weekendiga inaan maadaama ay walwalsan tahay weekendiga meel aan ku hayno geeyno isniintina aan keeno waxaan ku iri horta gabadheeda aan arkabal gabadhan arkin inay dhibaatada ka sheeganaysiin inay jirtay in kale sidaan warqad u saxiixa hadaad warqadan saxiixin iyo hadaad saxiixdo laazim gabadha ma la soo celinayo oo sababta jirta maxay tahay ma sheegi karno ajalka soo daawo laga soo duubay waxaan ku iri okay maxaad iiga baahantiin warqadan inaad saxiixdo ma saxiixayaan ku iri warqad abukaateygan wacay wuxuu igu yiri saxiixin warqad waxaan ku iri hadaa xoog iiga qaadanaysiin waa adinka ilmo la dhashaa guriga ku nool dhibaatada haday jirto waa taas bal ilmihii gurigii kula noolaay dhibaatada ha saamaysa laakiin hal cunugan la tagaynaa dhibaatada guriga ka jirto weligay ma arkin ilaa inta sano wadanka ku noolahay ayaa la qaadanana arki jiray waxay igu dhaheen ama diid ama day gabadha waa la tagaynaa waaye dad adiga xoog badantiin xoog ku qaadanaysiin waa wadan kartiin aan ku iri abukaateygi aan wacay mar kale waan ugu dhiibay way wada hadleen waxay ka dhameeyeen inay ilaa isniinta ay gabadha hayaan isniinta ay soo celinayaan abukaati waa liigu soo celis waxay tiri saxiixa isniintana gabadha keenan so qofkii abukaataha ku ahaa wuxuu ku yiri indigan hala soo jirto saxiix isniinta laakiin gabadha keenan okay aan ku yiri saddexda maalin waan saxiixay so waraaqa laga saxiixay inay 3 maalmood laga soo haysto 3 maalin in la haysto warqadii waan hayaa iyadoo sawiran saddexda maalin markaan saxiixay waa la waday gabadhi isniinta arinta way ka soo baxeen isniinta gabadhi waa la keenay mar allaala markii gabadhi saas guriga loo soo galiyay intay imaaday dharkiis ka bedeshay qadeysay
computerkeeda iska daarad sirteeda saaran tahay buu telefoon usoo dhacay xaggaas ee liis tagtay tiri gabar kama tagayna waan wadanayna sabab sheefkanaga wuxuu nagu amrina inaan gabadha laga tagin ma sidaas ahaa aan waxaan ku iri gabadhayda hadday dhib qabto waatan guriga way joogtaaye hala wado hadday dhib banayna waa loo wadaa gabadhii aan u galay waxaan ku iri waa lagu kaxayna afkay furatay bawaba ana meel u socdo malaha way iga soo daba galeen waan soo baxay fadhiga imaaday way iga daba imaaday dhaxday igu dhagtay way oysay labada garbooda lagu dhigay banaanka loola baxay ayadoo oynays waxa la yiri maya shalay ajalka laga duubo hooyada aan soo fiirsan ma joogays so ilaa hadda 3 maalmood ama 4 maalmood soo dhaaftay maalintii ugu horeysay laga wada gabadha ilaa hadda lagu sheegin sababta laga qaaday sababta ilaa hadda ay ku maqan tahay ilaa hadda wax ii sheegay malaha oo kali warqad la ii soo dir waxa ku qoran gabadhaada 6 bilood inay maqnaanayso oo haysanayna ilaa haddana wax cadeyn lagu haynin oo ka shakisanahay okay 6 bilood dani ka maqnaanaysa waan baaritaanana socdo baaritaanana socdo dabcan laakiin booliska wuxuu igu dhahay waxaan kugu haysana malaha arinta waa soo xirnay so booliska loo gudbiyay case-kii booliska ajalka ka soo duubay gabadha so gabadhaad waa la wareystay mana loo weydiin ka horba intaanan ba ajalka lagaba duubin horteed nin kamuunaha ka socda iskoolka ugu tagay waxyaabo ka qorqoray ma la ii sheegin ajalka markaan fiirsanayaan ka ogaada oo liileeyahay ninka hebel la dhaw ku imaada ma xasuusataa meeshu ka socday ma garanaysaa maya kamuunku ka imaaday lagu dhahay ajalkaasaan ka ogaaday ilaa hadda xataa qofkaas annagaa dirsanay oo gabadhaada soo wareysanayay ama dhibaatadaas ay gabadhaada aad ku hayseen ama xaafadda ka qabtay maxaa qaldan maxaan ka qaban karnaa cid itiro oo soo wargelisa ma jirto waa la qaatay ajal laga soo duubaa leen ka warhela okay waxa lagu yiri talaadada camal asla hadashan hadana waa lagu soo celiyay waa laga waday hadana soo ma gabadhii jimcadiya gabadha la waday goorma la soo celiyay marka isniintii la keenay sidii ballanta ahayd ballanteeda abukaatada ka ballan qaadeen dharkii loo qaaday waana la celi soo ma kula sii joogin isla markii la celi markii waa la celiba maxaa lagu keenay marka aniga ilaa hadda cadeenba ma hayb ilaa hadda waxay gabadheedu ku maqatay ma ogi may waxa weekendiga laga soo qaatay weekendiga laga qaaday maalintii isniintii lagu keenay ayakiyo kumuha la socoto maxay u keeneen marka hadii celinayaan ay wadayaan ilaa hadda ayagii ma cadeen laakiin sidaan u arko abukaatada balanta laga qaaday la oofinay so guriga la keenay sidii loo qaaday waa la celiyay ayadoo ooynaysana waa la jiiday markaas ka baad maxaa dhacay ilaa hadda gabadheed sidii bay ku maqantahay okay maxaa lagu sheegay ina xaq u leedahay maxaa lagu la taliyay kumuna maxay kugu la taliyaan waxay ugu dhaheen 6 bilood anaga go'aansanay laakiin xaq waxaad u leedahay inaad dacwood hada dood ka qabtid laakiin ilaa hadda lagu sheegin sababta hadda sababti gabadheeda lagu haysta cadeyn uma hayo warqada waxa ku qoran waan ka shakisanahay maxaa la dhahay to 6daas bilood anaga go'aansanay dood dad qabtay waa dacwoon kartaa bas okay ilan systemka normal waxa jiro laba siyaal lagu qaata caruurta mar waxa jiro in lagu dacweeyo oo lagu baaro oo ka bacdi loo diro dacwadaas baana udvel dad fadhiyo iyo mar akuud lagu qaato isla markii la qaato san adig kugu dhacdo wuxuu u eg tahay akuud aan baqaynilse so wax sababta laga qaadana lagu ma sheegin ilaa hadda ma jirto okay luumana dhihin waxaas xaq u leedahay sidaas gabadhaad u soo cesho kartaa okay 6 bilood maxay baarayaan marka aniga ma oga okay so maxaad dareemaysaa marka hadda hooyo ahaan adi maxaad dareesatahay marka maxaa waa dareemi kartaa qof dhan oo maxaa la dhahay to cunugiisi sabab uu ku maqan yahay aan garanaynin oo inta jaf la siiyay la yiri ma arkaysid telefoon numberkii laga bedelay meesha la geeyay aadan ka warqabin wax lagu haysta aadan ogeyn aadan maxay kula tahay bilow aadan aad tasmaa xanuunka kale aan dareemi kartaa bil iyo baray gabadheeda maqan 31 bishii koobaad sida loo qaatay waa okay oo yani yaa ku keenay abukaadkan adi abukaadka hore ana lahaay see u lahayd adi yani awala aniga awal lahaay laakiin markii dambe
jaaliyadan arinta soo gashay jaaliyada abukaad cusub ii qabatay hadda jaaliyada arinta ku jirto okay abukaadki kugula talinaya waraaqda inaa saxiixdo sababtu kugula taliyay maxay ahayd maxaa keenay inaa wax saxiixdid waxaa jirtay markay aniga ila hadlaayeen aniga gabadhi ma arkin dhibaato waxay sheegaan anigaba aan la yaabay gabadha way dhiban tahay way cabsanaysaa caawa meele waxaan rabnaa ay ku dareento nafis way walwalsan tahay waxay tiri guriga kuma laaban kara warka aan sheegay in la idilaan ka baqa wax balaaye iska daba gidiyeen sidaasay looyarada ugu sheegeen soo ma ogid marka loogu sheegay idan waxay tiri bal si ay iyada nafis u dareento weekendiga bal gabadha hala soo maqnaata bacdul weekendi isniinta gabadha hala keeno laakiin maxay muhiim u ahayd inaa waraaq saxiixdid ilaa markastaba xoogaa lagaaga qaatay maxaa keenay inaa waraaqdaas u saxiixdid okay waa mahadsantahay su-aashaas aadaan ugu baahnahay waxay muhiim u ahayd aniga ay igu dhaheen qolada familian outdealinka gabadha haddaan iska wadano uudan bavis warqad la-aan haddaan iska wadano waxaa laga yaabaa inay walwasho oy tiraha intee la ii wada cabsi dareen af buuxa waxay igu tiri naagta waxaan leenahay waxaan ku geynaynaa sawaneetin warqadaana hooyadaa soo saxiixdo raalli ka adiga marka maxaa keenay inaad saxiixdid waraaqda gabadha dhibaatada laga sheegaa waxay igu noqotayba wax la yaab leh marka liila gabadhaada waa walwalsan ma cabsanaysay kumuna ma ka cabsanaysay maxaa keenay ileen waa ogeed inay wax lagu sheegin waa ogeed inay gabadhaada wax ku ogeen sax waraaqna waa lagaa saxiixayo inay gabadha lagaa qaato adi ma shakisaneen ma ka shakisaneen tan jirtaa waxay tahay horta first meel aan taagan oo ilmo lagu qaato markii ugu horeysay ama daris ama asxaab ama dad aan aqaano ama qaraababa tan kale warqada waxyaabo badan oo ku qornay waa laga tirtiray wiil oo caruuryada caawiyo magaalada dhinac ka jooga ayaa la socday oo ku yiri sahra ma u qalanta warqadan waxa ku qoran inay saxiixdo waa inaad ka tirtiin oo kali 3 maalin bisha 31 ilaa 3 bisha inay gabadha 3 bisha soo celinayaan warqada intaas bisa ku qoran inta kale waa la tiray okay yaa tiray markaas ayaga tiray okay dad waxa jira marka aan waxa geeska dadka kala ka weydiina okay dadka wixii ay dhahayaan iyo kumuunaha waxaas amal ma sameeynayo inuu wax aasixdid oo tirtirtid macquul ma aha sawiran ka haya haday leeyihiin dadka sidaas so waxa saxiixday iyo wixii lagu tusay way kala duwanayeen yani marka laba waraaq oo kala duwan hal warqaday ahayd warqada godaday leedahay wax ku qoran yihiin oo x la saaro warqada 3 meelood ay kaga qornaayeen 3 meel 3 god way x saarnay si macnaha warqad 3daas god inay marqaato u tahay saxiixeeyay inaan raali ka ahay 3 god 2 god ayaa waxa la saaray qalinkii inaanan macnaha saxiix shaqo ku lahayn laakiin oo kali anoo taagana waxay gacanteeda ku qortay waxay tiri weekendiga bas aan haysaneen waxaan su'aalay seen ku ogaan karaa maxaa cadeeno inaad weekend bas gabadheeda haysanaysiin ilaa meesha kuma qornay markaas waxay qortay 31 ilaa 3 bisha bas inay haynayaan 3 bisha gabadha la soo celinaa warqadii sawir waxa kale ku qornaa waraaqda wax kale kuma qorna okay laakiin maalmood marka ka hadlayna case-ka oo kumuunaha ay ka hadlayeen waxa la yiri in u ogoleed in gabadha qaataan ma maqleenin dhageyso uma ogolaanin waa isniinta markay gabadha keeneen ayadoo oo markii hore intaysan gudaha ku jirtay soo bixin waxa la yiri gabadhaada waxay ku faraxsantay inay meesha joogto ayada ku qanacsan ayada tir waan rabaa mideeda kale waxa la yaab igu aan waxa u maleyn jiray dadka markay mas'uul yihiin inaysan been sheegin gabadhi waxa lagu leeyahay hooyada way ku faraxsantay inaad anaga nala joogtid anna waxa lagu leeyahay gabadhaada way ku faraxsantay inaad anaga nala joogto wayna kala gadeen see ku ogtahay taas waxaan ku ogaadan ku sheegaa gabadha gudaha ay ku jirtay halkaan ay isla fadhinay waxay igu dhaheen gabadhaada way ku faraxsaneed 3 habeen ay meesha soo seexatay markaasaan ku yiri gabadheeda ma ku faraxsaneed haa bal ayadana soo baxda ma ilama hadli kartid la igu dhahay sabab wayba joogtaa waanu la hadlaynin maya gabadhaada way ku faraxsan tahay haddaad adi dhex gashido tiriid waa ku kaxaynaynaa ha bixin oo dadka raacin waxa laga yaabaa inay natiido sidaas mi aha haye waayaan waa istaaga dharka u soo qaad maagay markaan galaan ku yiri caasha waad bixaysaa dadkaad raacaysaa
weyba oo isib way qaracanta ayaga igu dhahay ma soo noqonayso way aanu laabana ma joogayaan meesha guriga nagaan rabaa maxaa keenay ani in liigu dhahay gabadhaada xaggay ku faraxsaneen ayadoo oo inaysana la kaxeeyo yani way ka xumeyd inay guriga ka tagto ha laakiin markaas ayada waxay igu dhaheen ma taqaanaa ayada waxay ku dhaheen caasha hooyada waad soo wacaysaa waad la soo hadli kartaa way ku imaan kartaa marka awaana la jiida way oyni gabadha moogtahay markaas waxaan ku iri maxaa la dhahaa aniga beenad ii sheegtaan ku iri maayaa la dhahaa naagta ayada maaya aniga beenad ii sheegtaan ku iri gabadhaadu meesha way ku faraxsantahay igu tiri haddana iyadoo oynaysa jiidaysa maxaa sababaan ku iri okay gabadhaada akuud lagu qaado akuud and bangles waxa la dhahaa ha marka wax weyn dhacayo wax weyn dhacay geeskooda iyo aaminsan yihiin wax weyn dhacay caruurtaada kale marka ma laga qaaday maama ciyaalka midaa ka yar laba ka waaweyn okay kuwaas maxaa loo qaadi waayay marka haddii wax khatar ku jirto gabadhaada sababta meesha taalaa taas ilaa hadda cidna inay ila soo xiriirtay ma soo raadinin dhibaato laygu haysta layma sheegin wax alaalahay gabadheedu ku maqan tahay ma ogi caddeyn la igama haayo booliskii cajalka duubay muxuu ku saabsanaa cajalka gabadha laga duubay macnaha oo wixii dhibaatada sheeganaysa seeska qofa gacanta ku haya Soomaa cajalka la duubay waxyaabihii uu ka fahmay ninka uu qorqoraa booliska interviewayna miyaa gabadha interview laga qaaday cajalka soo ma aha qofku muunaa ka socday iyo baana muunaa waa la qaaday booliska loo geey okay booliska waxa loogu talagalay wixii dhibaato ani iga sheegato inuu iga ka qoro oo ani ila xiriiro hadda wax qalad sameeyay wixii qalad sameeyay aniga liigu ganaaxa ama liigu sii istiqaafo waa la isoo xiriir wax istiqaafo milid waaba la xiriir kiiskaada so booliisku wuxuu cadeeyay inaan wax dhib ani aanan okay xaggayga ka jirin okay marka ma lagu soo celinna yani haddii lagu baaray oo la ogaaday in uu booliisku kugu dhaa wax weyn meeshaan wax ma dhicin wixii ahayd in gabadhaada lagu soo celiyo taas waay tan ani hadda aan la yaaban laba warqadood ay imaaday mid ka socota booliskii gabadheeda wareystay iyo mid ka socda inuu ani igu sameeyo baaritaan guud wadanka goortan soo galay faa'il competence iyo wixii aan qabtay iyo wixii qaladaad wixii galay wax soo dhan labadiiba balanaan samaystay inaan la kulmo kadibna midna uu isoo wacdo macnaha igula hadlay wuxuu waa la soo islooday warqadina waa ku soo diraa midna warqadu ii soo diray uu leeyahay waaba joojiyay baaritaan dama ma jiro okay maxay baarayeen marka ma lagu sheegay booliiska waxay baarayeen dabcan aniga wax ii sheegtay malaha laakiin tan oo hadda gabadheeda ninka codka ka duubay dabcan codadkaas gabadha wuxuu kala dhaxbaxay wixii ani igu saabsan oo qalad oo gabadha ani u geystay markuu wax igu soo waayay wuxuu yiri kiiskaada waan xiray intuu soo wacay kan kaleeto waxa ku soo haray la yiraahdo criminal miya xasas camal balan uu ii dhigay balanta waxaan dhahay waqti uma hayo balan kalan ka samaystay intaanan la gaarin warqad uu ii soo diray uu cadeynaayo inaanan baaritaan dambe igu soo celin oo la xiraayo okay ayagiyaan war ku celiyay waxaan ku iri aniga boolis ima haysto adink waxaa jirtay waan u tagay waxaan ku iri boolis labada dhinac warqadaha liiga soo diray waa la soo xiray ilaa hadda wax cadeyn oo adinkii ii soo dirteen oo qaas ugu haysatiin ma jirto sababta ay gabadheedu ku maqantay ma ogaan karnaa af buuxa waxay igu dhaheen booliska waa kiis gooni annagana arrintanada waa gooni anaga gabadhan dhibaatadeeda ayaan rabaa inaan xal u helno booliska laakiin wuxuu ku daba joogay adiga la rabay waxa taa in la soo ogaado ama dhibaatada aad geysata la daba galo okay hadda say iga rutiin gabadheeda si goormay soo noqonaysa maxaa say ugu haysatiin ma ku sheegayna okay ani geeska dadkan ka weydiina okay ani waxa aan aaminsanahay umaleyn dada wixii dhahayaan wadankana ku noolnahay shuruuca jiro qof waalid caruurta lagama qaado hadii si waxbana jiro bila sabab maxaa ku jawaabi lahayd adi aniga batidaasan aaminsanahay intaysan igu dhicin ka horo ma fahanday sababtoo wadanka hadda 8 sano aan joogaa qaasatan magaaladan waxaan deganahay 3 sano iyo 4 bilood weli horta waa markii ugu horreysay kamoon iska hor imaanaba ma fahanday
sababtoo iskool markaan inta imaada iskoolaan bilaabi ceyrna ma u doonanin waxba micnaha ma dhex marin systemka ma ku yaqaano waxaan wallaahi mararka qaar anaa dib isula yaaba waxaan dhihi jiray magaalada inaan ku noola kamuunka ma oga miyaa sababtoo ma ila soo xiriiri jirin ma lahayn qof oo ii xil saaran famil ahaan oo ila soo xiriiro markii u horeyso xiriirka ila soo xiriiray markii gabadheeda la qaatay waba hal mar isla noqotayba qaadista gabadh la qaato ba xiriirka u horreeyay la igu soo daaqanay horteed aniga kamoon iskama warqabin qof oo maanta oo ilmihiisa dayacaya ama qof maanta maxaa la dhahayaa tan ilmihiisa ka warqabin oo ilmihiisa dhibaato u geysanaya ama ilmihiisa dayacay hadaan ahayn hal cunug lama qaateen wiilaa ka yar labaa ka waaweyn inta ayada arrinta saameyn lahayd sababta keentay ilaa hadda ma garanayo gabadhaas waa gabar xanuunsan wadna xanuun qabto wadanka madaxeeda calaasha madaxeedan ku imaanay waa qof aad loo koolkooliyo loo ilaaliyo waa qof ciyaalka kaleeta inta badan laga bixiya oo inta badan focuska ayada la saaro dhibaato maanta si qaas u haysato oo iyada loola cararana guriga nagamaba ka jirinba marka ma garan karo sababta okay waxaa tiri waraaqo aada saxiixin ama araali ka aheena lagaa qaaday waxaa tiri maxay ahayd sababta gabadhaada lagaaga qaaday ma ogid waxaa tiri booliiskii markay ku baareen waxay dhaheen maxay ahayd wax waa lagaa waayey okay xaq waxa u leedahay inaad dacwootid qofkan oo abukaadka ku ama lawyerka ku muxuu sameynayaa marka qofkaas tan jirtaa waxay tahay marka hore abukaateygan ku xirnay ilaa ay dhowr iyo 10 cisho magaalo kale deganeed marka abukaadkan kale inaan u soo wareego oo case-kaagi la soo wareejiyo oo maxaa la dhahay tijaaliyada ay weerar qaado waxa kasbay 13 cisho markay gabadheeda maqan tahay warqad la ii dhiibay oo la yidhahay saarmiya warqadan saxiix sabab warqadan gabadhaada gurigaana looga raraa guri kale la geynaa ma saxiixayaan ku iri markaan ma saxiixayo iri waxaa la sameeyay markaas waa marka maxaa la dhahay to automatic ana warqad liiga saxiixna gabadha la wareegay markaas waa markay qaadanayaan go'aanka 6 bilood markaas waa marka sim code-ka telefonkeeda laga bixinayo marka laakiin aan waxa ugu tir cadeemo badan haysataa sax marka dhibaatada jirto waxa waaye qofkan lawyerka ku cadeemahan iyo dhibaatooyinkan la kulantay maxay wax uga keeni waayeen ilaa waxay u eg tahay in laga gardaran yahay maxaa keenay in wax la sameeyo waayo tan taala waxay tahay waxa la yiri mar haday go'aan ayaga qaataan go'aan qaadashadii iyo lawyerka cusub qabsada isku soo aaday mar haday go'aan qaataan dhaqdhaqaaq ma la sameyn karo ma fahanteen 6 bilood ayaga go'aan ka qaateen dacwadaada isku duuba wixii cadeenad haysato isku duuba laakiin hadda now lawyer dhaqaaq karo ka hortay kara malaha laakiin gabadhaada 6 bilood hadii ka maqnaato way ku iloobayo gabar yar waa so lawyerka muxuu yiri waxaas wax kama dhihin miya yani wax meel la aadi karo male oo laga dacwo karo ma dacwadu waa binaadinki hadaa ka hadli dacwadu waa ku furantu dhahay warqadaan qornay oo qof kale iga caawiyay warqada ayagaan u dirnay lawyerkana wuxuu dhahay warqadu ii soo diray maanta ka jawaabay si aan u kulano wada hadalno okay okay gabadhaada case gabadhaada hadda koor case uu kumuunaha uu ka yaal ma jiro caruurta kale wax ma jiraan oo keena hal mar in la qaato so ilaa hadda wax ogtahay male 6 biloodana la go'aamiyay in gabadhaada hadda waxaan ogahay oon tilmaami karo hatta videoga aan soo fiirsado gabadha laga duubay ku jira ma jirto okay on ka ahayn marka ay videoga laga duubay on ka ahayn caruurta yar yar ko ayada la dhashay ka sheeganaysa okay shak marka ileen shakiya imaaday qofa ayiri waxaana ka shakisanahay yaa way qofkaas marka oo naqaadniga ku sameeyay ama dacwooday ma gabadhiya ma iskoolkii waay halka jirtaa waxay tahay waa dadka ilmaha way kala duwan yihiin waxa matalan hadda maanta oo kale tad cunug isqabtan waxa laga yaabaa dhowr sano kadib inay soo xasuusato ilaawin marmarka qaar marka ciyaalka sheekaysanaa waxa laga yaabaa inay tira walaalka yiriiska waa nacabahay
ama walaalkay weyn waa necbahay oo walaashay sidaana i tiri wixii yaala isu geegay ciyaalka markay kula sheekaysanaysa macallimiinta loo geey macallimiinta waxay u gudbiyeen soo macallimiinta iskoolka ku soo dacweeyay okay hatta inay macallimiinta isoo dacweeyeen caadi uma haayo laakiin video-ga waxa ka fiirsaday macallimiinteeda macallimad kamid ah inay la socotay okay adiga ma ogtahay ina xaq u leedahay waxa la dhahayo act insect oo wax kasta oo systemka ku jiro inaad lagu keenayo 7 maalmood gudahood taas waan ogahay waana u tagay waana weydiiyay marka waxa igu haysteen cadeynta sidaan u ogaado hal ii soo diro waxay igu tiri haddaan ku sheegno horta wixii kugu haysto qadalku ma soo diray hadda laakiin hadda dan ku sheegno wixii lagu haysto difaacaaba naga galeeba soo haddii sababta lagu haysto lagu sheego waxay ka cabsanayeen ina difaac bilaad oo isdifaac laakiin waxa aan iska difaacaan ba ogeyn waxa macquul maayo soo waxa lagu haysto lagu ma sheegayo waxa laga cabsanaana ina difaac gashid sababta ilaa hadda ma fahmin okay iskoolkan oo iskoolka oo hadda gabadhaada laga waday history ma u leeyihiin in Soomaalida dacweeyaan dabcan hay maxaa dhacay iskoolkan waxyaabo badan ka dhacay hortay iyo intaan deganayba iskoolkan waxaa jira ina Soomaalida qaasatan macallimiinta iyo inta mas'uulka ka ee aad ugu fiirsadaan oo lagu cunsuriyeeyo mar waxaa jirtay ilmo yar yar oo iska hadlaa inta la guray 7 caruur la soo geeyay boolis la soo wareystay goorta la qaatay kadib waalidka loo sheegay xataa markii la qaadanayna la ogeysiinay wax kasto dhacayna inta badan macallimiinta gudbiyay sababtoo ah macallimiinta iyo dadka oo ka mas'uuliyiinta intaas ayaga cunsuriyaal kamoonka iyo booliska iyo maxaa la dhahay macallimiinta iyo mas'uuliyiintana waaba ku heshiiyeenba cunugiina intaan ka dhacay hooyada ma kula socotay markuu dhacaha soo baxay anaga meel ku geeyay okay dada waxay dhahayaan markasto dhibaato dhacdo Soomaalida cunsuriyaal way dhahan Deenishka ma keeni kartaa example oo keentay ina u maleysay inay cunsuriyaal yihiin waxa kamid ah ku sheega waxa kale oo jira qoys kale oo magaaladan degan oo caruurtooda lagu qabsaday inay gudniin u geysteen oo kala isbitaal kasta la geeyeen wax soo cadeen way hal isbitaal ay iga geysteen wuxuu yiri ilmaha gudniina naga shakisanaay ilaa haddana lagu daba taagay kiiskooda la xirin iskoolkaasayna ka dhacday okay waa kiiskan gudniinka saxaafadda uu imaaday oo dhakhtar oo la dhahay gabadh dhakhaatiir kasta loo geeyay ilaa Jarmalka la geeyay okay ilmihii ma gudno ayaga hal isbitaal ay geeyeen bas wuxuu yiri waan ka shakisanaay inta kale isbitaal kasta la geeyay waxay dhaheen wax gudniina ma laha ayaga amarkooda socdo si ayaga rabaan aan shaqeynayso okay horta qisadan qisa mucjize waaye ilaa wax qofka yaraan waxa lagu haysto waa in haduu ogaado xataa macquul waaye okay goor ma kugu dhaheen 6 bilood dhan way haysanayaan mase degdegi u sameynayaan baaritaankan wallahi horta waxa la dhahay qofka marka la soo weeraray meesha laga soo weeraray inuu og yahay fiican hadaa dhimanaysid maadii lagu dilaana meesha wax lagu dilaa inaad ogtahay gabadheeda inay biri keeni rabaan inay say sheegayaan 6 bilood haysanayaan waliba warqada waxa ku qoran waxaan isku dayeynaa haday noo suurta gasho inaan 6 bilood aan ku darsano wax kala ku qoran okay ma kula tahay waraaqdii saxiixaysa maalintii ugu horeysay inay waxaan ka dambe ay keentay sababta ay tahay waxaan dhan ina waxa dhici karto u saxiixday gabadhaada in la soo baari karo may baaritaan ana ma saxiixin marka la soo baari kadib waa warqad la keenay okay gabadhi marka la soo wareystay la soo hadlay oo marna kamuunku gooni u wareystay bilooyin ka hor markii dambana oo kamuunku intay qaadeen booliska loo geey soo wareystay kadib waa markaan warqad la keensaday warqadan saxiixin 3 maalin ku qoran bas warqada dambe markaan diiday waa marka weerarka leeyahay qaaday gabadha xaafadda laakiin fiiri qofka oo caruurta xukumo magaaladiina markii la weydiiyay waraaqdaas saxiixday waxay dhahday waxa ogolaatay inay gabadhaada la qaada karo ma xasuustaa ay dhahaysay afkii ka tiray halka meesha jirtaan ku sheega tan afka warqadaas aan saxiixay isniinta gabadhi marka la keenay waxa leeyahay gabadhaada meesha way ku faraxsan tahay
يعني ماشي اللي جاي وكو فرحسنتها waxaan ku yiri horta ani hooyaan ahay qof ilmihiisa nacib meehi inugteeda way xanuunsan tahay gabadheeda meesha farxad ku dareemayso oon ogaado aniga waa faraxsanaa ku dhexeeda ku faraxsanaa laakiin first horta ayada aan helo aan la hadlo wixii ay ayada qabtay aan ogaado markii horeyso loo sheegay way ooysay ma fahanteen markaas waxa la igu dhahay ama ha ooyso ama hadii ama ha qostasho ayada u taala anaga sheefkeena soo wacay waa wadanaynaa hadday xog wixiina tahan dhaay maxaan qaban karaa markaas waxa la iga gudbiyo la leeyahay hooyadeeda afka nooga ogolaatay waaba la qasbay maxay tahay afka ogolaana ma ku dhiglahay afka la dhaho malayo warqada saasa ku qoran laakiin wax la dhaho afka awgaals wax la dhahay in la sameeyo waayo oo laga saxiixo waan sheegana warqadeedin ma saxiixayaan ku so afka ku tiri waxa non samling ya warqada ku qoran inaan afka ka siiyay hadda ma intuu booliisi imaado la jijiidaan suga gabadha markii la igu dhagay oo la qabsaday oo ooyso inta lagu dhagay oo gabadha operation tahay waan u daay ilaa ya farnaawada aanay la baxaan ilaa ay kala baxayaan jaranjarada iskala degnay waa iska dhaafay markaas waxa la ii soo dhajiyay adaa waxaad ka ogolaatay afka okay waxa ku weydiinaa marka ilaa maalintaas waa maalin muhiim ah ilaa hadii ay go'aansadeen gabadhaada inay haystaan oo lagu soo celin guriga lama keenin lahayn sax soo kula ma kula ahamiya maalintaas waa maalintii la go'aaminayay inay 6 bilood laga soo qaato oo la dhahay afka ka tiri ileen gabadhan hadii la go'aansaday inay lagu keenin guriga lama keenin lahayn looma guriga ayadoo meesheeda joogta inta lagu imaan lahay waxa laga soo qaadi lahay dharkii iyo wixii waa laga tagi lahay laakiin in guriga la keeno ilaa waa la ogyahay waalid iyo caruurtiisoo la kala qaadayo conflict weyn ka dhaxayo so ma ahayn inay keenaan so maxaa keenay kula tahay in gabadhaada inta la keeno oo hadana laga qaado sababta aniga ma sababtaas aniga ma garanay sababtoo aniga waxay iiga dhigeen gabadhana ay ku dhaheen marka ayada waliba say sheegaysay waxa lagu dhahay Asha Fafel dib kale haduu ku soo gaaro waa ku caawinaynaa dib kale kasoo ku soo gaarin gurigiina marka tagtid waliba maxaa la dhahay marka imaado waxayba iskoolka marka imaado boorsadeeda ana soo qaaday habaan sii waan salaamay iskoolkeeda gasho waan ka soo tagay markii waa la soo kaxay ana inta la igu shiray gabadha ayaga keenayba naaga keentay anigana af 3 kale intii wali shiraysay afarta naag markan inta warka ku dhamaysanay gabadhi waa la wadaa leedahay sabab telefoon soo dhacay sheefka naga cudhay gabadha kama soo teegi kara labada naagooda ku caawinaysay dheen maxay iga caawinayaan gabadha ka haysateen gabadha ha joogtaan ku labada naag deerbana ii seexdeena ana boos u haay lawyer kan akeensata marka yaa ku keenay lawyer kan jaaliyada okay mal yaa waay ma la soo baaray wuxuu yahay inuu experience u leeyahay qaybaha caruurta ma la ogyahay waxaas lawyer-da haye meeqa sano ka shaqeynaysa qaybta caruurta kula tahay wallahi sanadkeeda saas uma haayo laakiin wax badan ka shaqeynaysa kiisas badan ay ku guuleysataan isku gaartay marka qolada jaaliyada ayaga raadiyay lawyer-ka waa la soo helay sidaas la igu keenay okay maxaa ka baratay keyskan marka wallahi wax badan oo la yaab igu noqday wax badan oo aniga u maleyn jiray inaysan macnaha illa hadda la yaabaaba sababtoo qof dhan oo wax u galabsaday illa hadda hatta hadii liira inugtaan maalinaad riday markad ku riday oo meeshii xanuunaysa xataa la garay inugtaan maxaa la dhaayato habeenay kugu riyo taxta hadii liida waxba bii ahaan lahayn illa hadda markay gabadhii ugu dhagtay ay tiri ma ka tagayaan ku dhahay hooyo ani ma ku dilay tiri hooyo ani adii ma dilin yaa kugu dhahay adaa i dilay markaas aan ku dhahay oo way lagu dhagan yahay ku dhahay daanan ani ku dilin ay tiri hooyo maya kan yiriski oo 7 sano jiray ay dhaade hebel maal heblaay waxa ugu dhuftaa iray aniga ma adaa wax yeelay caruurta sida hadda hadalada markaan gabadha la hadla ka dareemayo caruurta layba ka sheeganayba wax ani ugu saabsan haba yaraata mala wax ay ii cadeynaan oo waxaan ay gabadha sheeganaysa ay ileeyeen ma jirto okay ilaa hadda sababta ma okay ilaa hadda markii qofka waxaan amal ku dhacaan meel kumuunaha wuxuu ka caawiyaayo wuxuu xaq u leeyahay iyo waxa looga baahan yahay ma lagu sheegay waxaas maya
wax la iga caawinayo iyo waxaan xaq u leeyahay inaan dacwoon karo leen xaq u leeyahay intaas la ii sheegay okay maxaa ka dacwoonayo maada ugu xal ugu haysto waxaan ka dacwoonayaa gabadheeda 6 bilood oo maqan la go'aanka laga gaaray inaan ka xumaan inaan ka xun tahay qofka markuu dacwoonayo wuxuu ka dacwoodayo sababta waxaan keentay ilaan waa xanaaqsanahay dacwo ma ahayo ilaan ina ka dacwo kartid okay gabadheeda sidaana liga qaatay sidaana qalad waay hal uu dacwo kara so adi ma bahaysatid ba information ma bahaystabe okay anaga go'aanan qaadan 6 bilood inaan gabadhan haysanayna maxaa la dhahayo hadaa dacwad ka qabtid waa dacwoon kartaa okay ya case kan ka caawiyay markaadi waxa iga caawiyay jaaliyada maxay ku sameeyeen waxay ii sameeyeen lawyerka ii qabteen waxay ii sameeyeen waxay ii qabteen waxay ii la hadleen dad badan oo kamoonaa kamid warqada dacwad inaan qortay ay garab igu siiyeen ma sha Allah horta programkan intaanu ku dhamaana horta aad u mahadsan tahay qof geesiya tahay dad badan dhibaatooyinkoodu way qarsadaan ilaan cases-kan adig kaliya kuuma dhicin dad badan ay ku dhacday laakiin lagama hadla badankood so aad ugu mahadsan tahay tan meesha taala waxay tahay maanta ani hal gabar ahaa iga maqan halkaas gabadh oo ilaa haddaan cadeyn leeyahay haynin waxaan aaminsanahay maanta qofkii hal cadeyn yar lagu helo cunug yar oo inaan cunug yar xanaaqsan intuu baxay hooday intii qanjurufatay bas waxaan aaminsanahay inaan Soomaaliya asxaan loo sameeyeen sababtoo waxaan ku ogaaday ilaa hadda ana wax cadeyn liigu haynin booliskii daba galay wax igu soo waayay kamuunka cadeyn oo maanta fare oo waxaan kugu haysanay dhigi karin ay gabadheeda waxa la go'aansaday 6 bilood inay haystaan ilmihii kaleeto ay cadeyn ugu hayaan ma siiyeen maanta day dhigi lahayd oo kaleeto hooyada way nagu xanaaq badan tahay markay xanaaqdo way madishaa bas haday dhigi lahayd waxaan hubaa hal caruur la iima reebeen ana xabsi la dhigi lahayd marka waxaan leeyahay hooyooyinka Soomaaliyeed oo dhiban oo maxaa la dhahayo qaarna caruurta laga qaatay oo dhiban qaarna maxaa la dhahayo ilmaha way iska hadal badan yihiin ani waxaan aaminsanahay hadda maanta aniga kula hadlayo gabadheeda wax yar oo yariis way weyneenee laakiin been saas intay u qaado qof ma u dhiibays waa laga yaabaa walaalkeed oo kale haday isku xanaaqaan inay week dhanka sheekayso hebel waa necbaa saas uu yiri hebel waa necbaa sidaas waxaas caruur waayo ma fahanteen laakiin ilmo waxa jiro haddaan Soomaalina waanu u badanahay ilmo waxa jiro beenta qaado oo qofka u dhiibay aan loo maleyn karin inay been tahay maamooyinka waxaan kula talin lahaa dhiban ama sideedoo kala ama iga wadaranba ana had maanta hal cunug ayma dadaa 7-8 cunug laga qaatay dadaa 6-5 laga qaatay maamooyinka sidaas oo kale u dhiban insha Allah iyagana Ilaahay dhibka ka dulqaad inay ka hadlaan ma fahanteen kuwa kale oo ilmahooda haystana inaysan markay fiidiyowyada daawadaan aysan dhiin ayada haysan waysay ayada ilmaheeda dayacday ayada dhibaatada ugu wacan ilaa waan iska naqaana Soomaaliya nahay inaysan dhihin oo kuwooda ilaalsadaan ilaa dad kale ku maqan tahay adigana Ilaahay u baa kugu maqan marka insha Allah inta saan kula talinayo tan kale waxa jirayo dadka waxay dhahan cunug hadii la dilo waa laga qaadaa sharciga saas ma sheegayo in cunuga hadaa disho laga qaado xuquuqa jiro oo qofka uu leeyahay hadii cunuga uu dhibaato uu sheegto waa in la baaro waa in la sameeyo wax plan cunugan sababta loo qaadayo goorma la soo celinaa waalidka maxaa laga rabaa waxaas oo dhan in la sameeyo waay dad badan saas looma sameeyo adii kugu dhacday acute and brain laha taasna hadii la sameeyo waa wax khatar in jirto ayaga markay kula hadlaayaan warqada ma ku qorayaan fiiriya horta inay maxaa la dhahayo ay dadka أنا سلا مركو هر آمنسنا ما أنت ما آمنسني وأقول رح آمنسنا نجري ندينش كبير شيء ما فهمت لكن أنا اللي يقول رقمي أفكر وحي يقولوا يهين محل دايت فول أقول كجرا والقدم كسو قرايان داي هنا دبعتها جرته والقدم كسو قرايان وكاشة كسرنا هاي لكن إلا إيه وقت أنت بارست قوضنا قبل هذا وهاي هدي وراءه كسو قران يوحن نقوس والدعوي كرتايو نقص قرآن لكن أفكار إجليين في هذه مركان كلية هاي ويلا عفلين واتدا وعن وحال يقول جروب فول أكجرا فول كم حوية ما نقانا ما كل شيء جينا ما كدعن
se wuxuu jiraan vol haduu yahay bal warqadii ugu soo qor wixii aan geystay warqada ma lagu soo qoray warqada oo kaliya waxa ku qoran waan ka shakisanahay saas darteed intaan ku baareen ilaa 6 bilood gudaheeda gabadha anaga inala joogaysa akud an brangilsahan yani wax oo cad ina sameeysid waa sababta taasna wixii keenaysaa caruurtan kale oo haysatidna inay khatar ku jiraan soo kulligood inay hal mar wadaan yahay hadii aadi laga shakisan yahay waa sax laakiin inaanan iga shakisanayn aan nafteeda waxa ku cadeynaysa ilmihi ayada ka yaray guriga joogan kuwa ka weynaaya guriga jooga booliskiin wuxuu kugu yiri waxaan kugu haysana malaha laba meel oo liiga soo qolada oo qofka CV-giisa baarto iyo wiil gabadheeda ninkii wareystay qaybta laga soo wareystay labadiiba waxa lagu dhaw wax kugu mahaysana midna warqad cadeynan ka hay midna afku iga soo wacay oo saxta cadeynan ka haya okay meesha waxa taala waxay tahay gabadha yar dhibaatada haysata waxay tahay matalan maanta hadii qof uu ka xanaajiyada kan yar oo kala markay hadhow kale kaaga sheekeynaysa waxay tahay qof aad u jilicsan waxay ku daree wixii way yar weyneynay ma fahad kasta waxa dareemaysaa qof dhiban inay tacamal halkaan uu saanaga yiri hadalkaas uu igu dhahay inta dhinacyada xoqota waxay sheegaysaa qof dhibaato haysata camal inay ma fahad wixii haday wax ka jiraan xataa macnaha ma aha inay wixii been ka wada tahay wixii haday jiraan xataa ay wax yar yihiin waa inay la baareeyo maya way weyneynay ayada xageeda way ka weyn markay hadlayso waxay leedahay hebel inta igu dhuftay way ooynaysaa kana inta iga daba gidiyay way ooynee hebel sidaas uu yiri way ooynee ma fahanteen wixii ayada way wax weynay xageeda ka yihiin markay ciyaalka ka sheeganayso kala laakiin ma garan karo wax ilmo ku saabsan haday tahay xataa ina aan li imaado leedahay dhibaatada ilmahan ay gabadhan ka sheeganaysa inaan kula aragnaa inaan kula shaqeynaa maxad ka qabtaa ma hadaan xataa gabadha leega qaado leeyahay wax bay qaranaysaa samahay hadaan hay ilahana bal ina gabadha dusha laga ogaado say reerka ku tahay wixii ay ka hadlaysay wax weyn miyaan wax yar waayo laakiin waxaana sheegaysid oo caawitaan lagu bandhigayo iyo kuma saabsana akud an brangilsaha waxay ku saabsan tahay hadii la dareemo inuu guriga dhibaato ka jirto ama aadishid ama wax jiraan markaas lagu baara adiga gabadhii la baara ka bacdiya plan lagu sameeyna ka bacdiya waxa lagu leeyahay waxaan waa ina bedeshid laakiin akud an brangilsaha wax kale okay midaan ku sheegaa marka meesha gabadha 12 jir waaya meesha hadda matalan hadii baaris inta la igu wado gabadhi guriga lagu ilaaliyo noole imaada ay arinta ka weyn tahay hadeeba arinta ka weyn tahay maxaa sababay in ilmaha kala laga tago taaste maxaa sababay inay booliskii baaritaanka ugu wadinay dhaan waxba kugu ma haysano maxaa sababay inay go'aan kaligood inta qaataan 6 bilood 6 biloodna aad u badan tahay fari hadii la ogaado inay waxbana jirin 6daas bilood kadib gabadhaadii oo 6 bilood ka maqneed isla gabadhaadu ma ahayo waxa isbedelay wax badan ay isbedelay wax badan xiriirkiina wax isku bedelay sababtoo hadda saakay oo kale balan aan lahay kamuunkan balan lahay waan la kulmi lahay markay 13 daqiiqo ka dhiman tahay oo banaanka u dago gaariga wad aan shatay ali soo wacay 5 qof oo laba Soomaali 3 Danish oo ani ila socotay ameesh ugu sugaysay macnaha ani inay garab istaagtay rabtay ameesh ugu sugaysay wali soo waxa lagu yiri waan joojinay coronavirus Germany waxaan ku iri asal 6-7 maxay igu soo qorwaysay 8 dhahdeen 8 waa isku iimaanayna ciyaal yarina iskool geysana saas oo ay tahay hadan waxaan dhahay is dhib wax kasta ba dhaceena bal 8 ka dib dhicin waa la isoo wacay 8 oo 13 daqiiqo la waxa la igu dhahay may maanta waa la awluusay okay 7-8 gabadheeda aan la kulman indha saari igu dambeysay maanta galabkii ay ahayd inaan la kulmo markay taas nasiib xumo waaye ileen kumuunayaasha dhana xiran maanta waxa la soo halay ahayd hada matalan markaad gaari baranaysid ama markaad shaqo aadaysid oo kale markay awluusatay SMS lagu soo qoraa tilka ka hor nus saac ka hor hal saac ka hor sababtoo meelad ka imaanay adiga gurigaada ma aha meesha lagu imaanay adiga waa imaanay dad kale taa imaanay oo ku garab taagan BC-da soo kaxaysan kartaa abukaata soo kaxaysan kartaa ugu dhahay dadka meesha markay isku imaadeen xal dhaw la awluusay hadda maanta 8 ka ugu dambeysay gabadheedan la kulma maanta ay heedin aan la kulmo markay 25 daqiiqo dhiman tahay soo waxa lagu yiri awluus
inta badan waxay igula kacaan si yar oo adiga matalan qof laag inuu waxba ahayn camal ixtiraam la'aan waxaa la ii keensaday turjumaan ani aan ficin waan kala hadlay waxaan ku iri turjumaan caadi ii keena ilaa hadda jawaab laygama siin ilaa hadda isla qofka la ii turjuma ma fahamte so yani waxa dhis lama ixtiraam wixii aan ka dooda ixtiraam ma laha maba loo arkaba inaan gabadha ay haystaan hooyadeed ahay ma u arkaan inaan xaq leeyahay oo bilow aadan ahay sida la ila dhaqmaya camal dhibaatadaas meesha ka jirta horta ilaahay ha ku caawiyo waxayna u eg tahay jaaliyadaada inay ku caawinayaan oo waxa u baahan tahay ku siinayaan haddii wax extra imaatana waa nala soo xiriiri kartaa dadka Soomaalida la xiriiri doonaa aadan u mahadsan tahay qof oo adaga tahay oo dhibaato ku jiro ilaahayna ha ku caawiyo sidaa sheegay qofkana waana muhiim inaad deganaatid waa ogahay hooyaa tahay oo gabadheeda ka maqan tahay oo ogeen wax uga maqan tahay laakiin sida hadda u degan tahay u deganaaw insha Allah ilaahayna uu ku soo waxaan aaminsanahay wuxuu ilaahay igu keena inaysan macnaa cidna iga qaadi karin wixii ii qorana inaanan macnaa cidna ii dhaafin karin wax waliba wuxuu ilaahay ii keena waa alxamdulillah laakiin dhibaatada jirta waxay tahay tacaddi darada iyo ixtiraam darada la igula dhaqmaayo waxba kuguma haysan laakiin gabadhaada waan haysanayna meesha taalo ma fahmi marka inay gudoomiyaha waxay raad hadalka qaadan